السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقالة عاصمة مقدشو وحاولي لآسن وميدكيسا فريج قبوجيها وكجرا جنرال شيخو أحمد علي halka dowladda federaalka Soomaaliya dhalinyaro intay soo abaabushay bartamaha magaalada geesay heeso u daartay iyadoo uu ku sheegaysa in ay sameynayaan kacdoon iyo baraarug shacab ma aysan qiimeyn haddaba muxtaramkii maydka uu lahaa iyo qaanuunkii dowladeed qaanuunkii ciidan iyo generaalkan geeriyooday oo markii horeba ay dayacday haddaba xog faahfaahsan ayaan rabaa in halkan kula wadaago marka hore waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalkan soo gudbiso oo cadaalad aad u heliso si nashar gareyso halkan waa fagaaraha weyn ee magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan meel u dhaxaysa isgoyska Soobe ee lambar 4 iyo wadada Dabka dhalinyaro rag iyo dumar ka kooban ayaa la isugu keenay oo la soo abaabulay iyadoo oo lagu sheegayo in ay dowladda taageerayaan kacdoon loogu magac daray baraarug shacabna ay wadaan heeso ayaa loo daarayaa way iska jeesayaan oo jaas ay wadaan iyada oo dowladda Soomaaliya ay dhaafi weysay in heesa la daaro iyo in dad meel isugu keeno oo la yiraahdo dowladda ay taageerayaan oo dagaalka ay ku taageerayaan haddaba tan waxay muujinaysaa in dowladda aysan ixtiraamin generaalkan qiimaha lahaa ee geeriyooday una geeriyooday dayacaad dhankeeda ah awood sheegasho muqoonin cadaalad darro musuqmaasuq iyo weerar ay ku qaadeen rag hubaysan oo qaab qabiil u abaabulnaa oo generaalka weerar toos ah oo aan gabad lahayn ku qaaday madaxweynihii ayaa ka aamusay darajadii uu bixiyay ayaa la dafiray oo canugan yar oo sheeganaya in uu yahay xeer ilaaliye ayaa maxkamadda fagaaraheeda ka sheegay arrin la yaab leh oo nin dowladda u shaqeynayay oo darajo lahaa deegaano badan oo gobolka Hiiraan shabeellada hoose shabeellaha dhexe ka cirib tiray raggan hadda dowladda ay la tacaalayso ee ka saaray gargaar gaarsiiyay gobolka Hiiraan oo la wada og yahay kana dhageysteen raggii garsoorka iyo maxkamadda fadhiyay oo dhagooda ku dhicinayay kana qaban waayay waxa meesha uu ka sheegayo ay ah dafiraad iyo xaqiraad iyo cadaalad darro haddaba raggan weerarka qaaday ayaa sidoo kale marqaati ahaan maxkamadda maalintaasi loo keenay la dhageystay iyada oo diinta ay sheegayso in qofkii gurigaad kugu soo weerara aad iska difaacayso generaalkana gurigiisa lagu weeraray haddaba dowladda xasan sheekh uu hogaamiyo 2 sano iyo bar ay jirto dad badan ayaa tabanaya cadaalad darro dhulkii ayaa la xaraashay dad saraakiil ah ayaa la laayay ciidamo ayaa furmaha dagaalka iyadoo laga fikiray laga baaraandega lagu shubay qaar nolosha lagu qabtay qaar la dilay qaarna meel ay jaan iyo cirib dhigeen loogeen haddaba dad badan waxay leeyihiin haddii dowladda federaalka Soomaaliya arrintan aysan raali gelin ee wax lagu qanco oo dhab ah aysan ka bixin waa in siyaasiyiinta xildhibaanada iyo shacabku ka soo jeeda generaalka aysan ka harin oo maxkamadda tiigsadaan sidoo kalena codkooda mar dambe aysan siinin xasan iyo kuwa la mid ah oo cadaalad darrada ehel asxaab iyo qaraab u noqday oo dadka waddanka u shaqeeyay halka maamuus iyo darajo la siin lahaa dafiraya haddaba Allah u naxariisto generaalka dad badan ayaa laga yaabaa marka inay ugu soo riixaan fuusto ah in aan uga hadlayo arrinta generaalka qaab qabiil waxaas cadeynaya in wax xiriir ah ama dhinaca qabiilada aanan isxigin generaalka hayeesho uu ka mid yahay dadka halkan aan u joogo in aan difaaco marka la dulmiyo haddii adiga lagu dulmiyo sidaan uga hadli lahaa ayaan arrintiisa uga hadlay haddii cadaaladda aad u helinayso muuqaalka soo gudbi haddii aadan u helinayna waxaan rajaynayaa inaad ka leexan doontid oo aadan sii shargareyn doonin waxaana idinka codsanayaa in aad boggeena ku soo biirtaan. Assalaamu calaykum.